السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويجدويتو إن صودا في وزارة arrimaha bulshada iyo qoyska ee Jamhuuriyadda Somaliland ku faafisay page-keeda Facebook in free ka dhigtay isdiiwaangelinta website-ka weyn ee Coursera kaas oo si online ahaan wax loogu barto uguna tala gashay ardayda ku nool Jamhuuriyadda Somaliland in si free wax uga bartaan muddo kooban oo ah dhowr iyo 12 sano. haddaba waxay xurmaysaa muddadan isdiiwaangelinta free-ga iyo 3 bisha October bishan ku guda jirno waxa ka faa'iideysan kara dhammaan Soomaalida oo dhan iyagoo iska dhigaya dad ku nool Jamhuuriyadda Somaliland. haddaba maanta waxay eegi doonaa sidii aad uga faa'iideysan lahayd. fadlan ku soo dhawaad casharka oo subscribe gareey kanaalka haddii aad ku cusub tahay. marka soo taawatid linkiga description hoose ayaad ka helaysaa ugu horeynba waxaad gelinaysaa xagga sare magacaaga ayuu ku weydiinayaa kadib marka magacaaga taawatid xagan kale waxaad sii taabanaysaa lab iyo dhigdig waxa tahay anu waqti badan siin maayo oo mar rabo waxaan ahay iyo magacayga in horaan u buuxbuuxsaday kadibna marka xagga magacaaga gelisid waxa ka sii hooseysa waa lab iyo dhigdig waxa tahay baad sii gelinaysaa kadibna waa emailkaaga saxda ayaad gelinaysaa runtii verification ama register kan la isku buuxbuuxinayaa waxa weeyaan af Soomaali waan iska fahmi kartaa meelaha muhiimka ahi wuxuu weeyaan gobolka iyo lambarka waayo waxa loogu talagalay ardayda Somaliland oo kaliya si aad u xaqiiqsatid amba ay ku moodaan inaad tahay Somaliland halkan baad gelaysaa lambar Somaliland laga isticmaalo iyo magaalooyin kamid ah magaalooyinka Somaliland iyo gobolada Somaliland gobol kamid ah kuma soo qaban karaan kamana garan karaan dad kale hadii aad dalal kale joogtid xitaa xagana waxaad gelinaysaa magaalada aad joogtid intan waa iska fahmaysaa waxaan kale waxa ka sii hooseeya waxbarashadaadu noocay tahay anu high school baan taabanayaa kadibna xaggan ugu hooseysa marka lambarka gelaysid waxa taabanaysaa submit baa taabanaysaa submit marka taabatid waxa ku oranaya waxaan kuugu soo diraynaa application-ka gmail-kaaga kuugu soo diraynaa kadibna marka gmail-kaaga ay kuugu soo dirayaan ugu yaraan waxay ka haysanayaan ilaa 8 saacadood wasaaradda Somaliland ee caadiga ayaad maxay toolay soo eegaysa kadib markay soo saxdo caadiga maxay toolay kugu soo warcelinayo oo waxay kugu soo dirayaan gmail-kaaga caadiga kadib marka email-ka kugu soo diraan waxay soo baxaysaa sidan oo kale imika xaniiga iyagoo igu soo diray kadib imika waa kan oo uu isoo galay kadib markuu isoo galay waxa taabanaysaa halka ay ku qoran tahay join group ba taabanaysaa wali waa kan halka ay ku qoran tahay join group ba taabanaysaa halka marka sii taabatid hadaan qaldeyn halka marka sii taabatid joint ku qoran tahay waxa ku soo keenayaa Coursera casharkii maxay toolay website-kii ku dhex keenayaa marka website-kii ku dhex keeno xagan waxaad ka arki kartaa horta marka waxay eegayna koorsooyinka meesha ku jira waa certificate iyo degree ay u badan yihiin kadibna iyo jaamacadaha bixinaya mid kastaana uu leeyahay markaad eegtid maxay toolay xagan oo soo socotid waxaad eegi kartaa jaamacad kasta iyo kooraska bixinayso iyo koorasku certificate iyo degree labada wixii yahay baad kala ogaanaysaa kadibna imika waa kuwan xagan waxa ugu sareeya ku loogu isticmaalka badan yahay amba koorso loogu barashada badan yahay xaga waa ka sii gali kartaa xagan kale marka kor u sii socotid waxaad arkaysaa certificate iyo maxay toolay degree oo laba kaati ku kala jira kuwan waa iska dhaafaysaa kuwan ugu yar waa kuwa certificate-ka certificate-ka kadibna waa tan certificate-kaas aad taabanaysaa marka taabatid waa arki kartaa professional certificate waa ku hoos jiraan wax allaala waxaad uga baahnayd kan laftirkiisa online degree programskana waa kuwan markaad online degree programskana saa aragtid hadda waxaan ku noqonaynaa xaggeeni caadiga ahayd xaggana waa koorsooyinkii nooca ahaayeen iyo community-ga dadka soo qayb galay xaggan hadda waxaan ku noqonaynaa xaggeeni caadiga ahayd maxay toolay sareen waxay sii galeynaa kooraskii oo waayo dadku way fahmayeen in halka yimaadaan laakiinse waxa ku adag inay si maxay toolay doortaan kooraska rabeen xagan waxaad ku arki kartaa koorsooyinkii iyagoo isku barbariyay saas oo wadi kartaa kadib marka saa wadwadid amba maxay toolay kooras kasta inta uu sii qaybsamo waad sii arki kartaa kooras kasta oo ku jira inta uu qaybsamo imika kama arkaa UCSA-da kadibna maxay toolay waad hoos soo degaysaa oo waxa taabanaysaa ku qorantay join free inka markan taabato join for free wali waxaan eegayaa maxay toolay koorsooyin ku jira kulba qaar baa marka soo baxaya
laakiin se marka hore xaggan waxa fiican inaad sign up soo tiraahid oo aad meesha caadi soo gashid. iminka waan xaggii caadiga ahayd baan soo garin, laakiin se weli maan gudagelin oo layma fasaxi karo inaan ka qayb qaato maxay tolo koorsooyinkii. join free for free marka sii taabto halkan waxa weeyaan log in. haddaba waxaad sii taabanaysaa sign up baa taabanaysaa. sign up baa marka taabatid sign up xaggan waxaad gelinaysaa full name magacaaga gelinaysaa, xaggana emailkaaga caadiga baa gelinaysaa, xagga hoosena password cusub baad gashanaysaa oo aad u badan. passwordkaas oo 8 baa ugu yar ilaa iyo 27 mise 22 buu yiri. aduu password aad u badan baad gashanaysaa xagga hoose. marka magacan aad gelinaysaa halkan magacii hore muhiim laakiin si ka baa muhiima oo waa kii shahaadada lagu soo qorayay. kadib marka soo geliyay iminka waa ka send baa taabanaysaa oo maxay tole verification-kii kugu dirayaan haddana maxay tole gmail-kaaga caadiga ah. marka resend taabatid waxaad qabanaysaa xaggii gmail-kaaga ayaad qabanaysaa amba email-kaaga walba ka isticmaasho waan kuu dirnay ku dhahdeen. marka qabatid gmail-kaaga amba email-kaaga waxaad arkaysaa xagga ugu sareysa ayaad tagaysaa, kadibna kooraskii baa kuu soo baxaya amba bahalkii. kadibna waxa uu ku yiraahdo waan ku aqbalnay ee sii taabo. kadibna marka soo sii gujisid uu koo soo saaraya, kadibna waa inuu ku yiraahdo halkan waa lagu aqbalay ee ku noqo Coursera. kadibna waa kan verification buu wali wadaa. kadib markuu ku aqbalo wuxuu kugu soo celinayaa amba isaga ku oran ku noqo markuu uu aqbalay email verification buu yiri. haddaba waxa taabata bogto Coursera. marka back soo noqotid haddaba join program taabo. iminka waxaan filaynaa hawshii fududaatay ee sidii horena ka fududaatay oo iminka waxa ku diyaara koorsadii amba casharadii oo free kuwaas oo aad daawan kartid. linkigana waxaad ka heli kartaa wasaaradda, waa kasoo hubin kartaa page-keeda Facebook, teeda kale description-ka hoose ee casharkan waad ka helaysaa. fadlan si aad u heshid casharadan iyo casharo kale oo ka muhiima fadlan subscribe garee kanaalka. iminka haddaan taabto join program baan uga jeedaa in yaroo muhiima jirta oo ah inaan samaysto maxay tolay meel khaasnimo amba wuxuu ku qoranaya waxaad gelisaa gmail maxay tolay khaasnimo oo adiga ku khaasa oo aan kan caadiga ah ku soo gashahayn. marka create no ba taabanaysaa. create no marka taabatid wuxuu ku soo baxaya sidoo kale. create no waxay ka micno tahay waxaad ku samaysanaysaa maxay tolay email khaasnimo by address. emailkaaga waxaa gelinaysaa, kadib marka emailkaaga xakaa gelisid waad iska dhaafaysaa. kadibna waa ku waan ku aqbalnay, laakiin se wuxuun baa weeyaan kii caadiga ahaa lagu soo diray wax, laakiin se kan waa iska caadi. kadibna browser category-gaas taabanaysaa waxaa kuu soo baxaya casharadaad u baahnayd oo ah waxaad rabtay.